Yes, I want to go to Somalia, especially in the capital, because I like Somali people. I just saw two girls from Somalia, and I can know if they are from Somalia or not, and I go say hi to them. So yes, I like. waxa jira su'aalo badan oo la weydiiyay hablihii reer Morocco markii ugu horeysay su'aalo la weydiiyo su'aalahaas oo laga weydiiyay bal maxaad ka aaminsantahay Soomaalida Muqdisho ma tagi lahaydeen Hargeysa ma iman lahaydeen sidee ay wax idinku yihiin bal ka warrama dhaqankan intaas oo su'aalo hablihii reer Morocco la weydiiyay soo dhawaada saaxiibayaal markii warshada Soomaaliya dadka waxa ka codsanay daawada muuqaalkan aad leegaraysid barteena Facebook Cabdisaaq Maxamed Suubiir barteena YouTube alwashada dadka cusub tahayna waxaan ka codsanayaa muuqaalkan aad si faafisay meel dheer si gaarsiisid waayahay saaxiibayaal waxaan doonayaa maanta inaan dul istaago horta waxaan wadaagsanay maalmihii ugu dambeysay Morocco in raggii Soomaaliyeed u socdeen haddaba waxa jira su'aalo badan oo la weydiiyay hablihii reer Morocco markii ugu horeysay su'aalo la weydiiyo su'aalahaas oo laga weydiiyay bal maxaad ka aaminsantahay Soomaalida Muqdisho ma tagi lahaydeen Hargeysa ma iman lahaydeen sidee ay wax idinku yihiin bal ka warrama dhaqankan intaas oo su'aalo hablihii reer Morocco la weydiiyay ayaan doonayaa saaxiibayaal maanta inaan ka hadalno in dul istaagno sidoo kale waxaan doonayaa inaan ka hadalno gabadh Moroccan oo nin magaranaysa ka soo jeeda dalka aan dhaxday maxaa Imaaraadka koow inta ka siisay hilibka ku darsatay waa cuntayba bariiska ku yaryaraysatay markii dambana waxa ay tiri saaxiibkay oo la ahay ayaan waayay markii dambe qiraalka sameysana waxa ay tiri saaxiibkay wuxuu ii sheegay inuu nacay oo gabadh kale dalkoodii ka soo guursanayo sababta daraadeed baan u dilay markay qaratay in dhibaato soo dhacday haddaba saaxiib inta san doonay maanta inaan ka hadlay halkan markaan joogno hadda soo gaadho waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa muuqaalkan aad la gaarsiiso meel fog gaadho ku soo biirtay barteen YouTube caalif share subscribe garaysid aad magarasa naga midaad waayahay saaxiibayaal markii ugu horeysay ayaa waxa la weydiiyay hablaha reer Morocco sidee ayaad u aragtaan in ragga Soomaaliyeed guursado maxaa ay ku jawaabeen bal jawaabtooda aanu yarada dhageysano muuqaalkan oo uu sameeyay xuquuqdiisana uu iska leeyahay geedisahan oo ah nin dhalinyaro oo YouTuber oo travel man oo adduunka oo dhan mara oo Soomaalinimada adduunka oo dhan ka gada bal muuqaalka aanu yarada dhageysano horta if we are Muslim all together, this is the most important. So who I find the marriage with the Ajnabi guy. So I find that you know another culture, another idea. So if you mix two people from two. waayahay waa Khadija gabadhan la yiraahdaa gabadhan waxa qaban dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo reer Mareykan ayaa qaba ninkaas waxa uu guursaday sida uu sheegay bishii August ee sanadkii hore inantan waxay sheegaysaa ma ay leedahay anagu ragga Soomaaliyeed muhiimadu waxa weeyaan inay muslim yihiin kaliya qofka waxaan ku qadarinaa inuu ninkaas islaam yahay balse adduunka ama dalkayga ama adduunka oo dhan yaan oranay dalkayga waxaan laga ogolayn ninaan islaam ahayn waxa kaliya laga ogol yahay ninkaas shuruudda koowaad ku xiran waxay tahay islaam yahay gabadhan ma ka faala qaadi kara waa su'aasha koowaad ee dadka reer Morocco markaad saa u tagto ay ku weydiinayaan waa markii ugu horeysay ee reer Morocco inta toos loo wareysto ay tiraahdo anu waxaan magaranaysaa anu kaliya ninka ku xiraya waa inuu muslim yahay gabadhan Soomaaliya qaba waa gabadh ganacsi leedahay muuqaalkan xuquuqdiisa oo dhameystiran waxa iska leh geedisahan oo ah wiil dhalinyaro oo YouTuber oo sidoo kale sameeya barnaamijyada adduunka oo dhan ku maro waayahay su'aasha kale la weydiiyay waxa ay tahay intaan ku garin gabadheed waxa sugaysaa waan ku dareemayaa ninkii ay gabadheed recipe ka dhigatay su'aasha kale la weydiiyay waxa ay tahay gabadhay aduu Soomaaliya ama Soomaaliland ama dhulka Soomaalida ma tagaysaa ama goorma dabanaysaa bal maxay ku jawaabtay idana jawaabteeda aan wada dhageysana labada jawaabood ugu muhiimsan ayaa ay haayeen Yes, I want to go to Somalia, especially in the capital, because I like Somali people. I just saw two girls from Somalia, and I can know if they are from Somalia or not, and I go say hi to them. So yes, I like. waayahay saaxiibayaal waxay ku jawaabtay intii su'aasha markii la weydiiyay anuu Soomaalida aad baan u jecelahay waan tagayaa Soomaaliya waliba si ugu dhaqsiyaha badan bilahan soo socda waxaan doonayaa inaan soo barto dhaqamada Soomaalida iyo sidoo kale dadka Soomaalida sida u dhaqmaan iyadoo taas jirta saaxiibayaal oo inuu saa ku jawaabtay ayaa waxa maanta biraha bulshada qabsaday ama si aad u haysta gabadh Moroccan oo saaxiibkeed inta ay dishay waliba bariiska ku karsatay aad u cuntay caloosheeda dhigtay waxa weeyaan gabadhaas waxay sheegtay in ninkeedaas uu la guursanayay
gabadh kale sida uu sheegay waa sida iyadoo tiriye iyadoo taajirta saaxiibayaan ayaa gabadhaas waxay tiri saaxiibkii wuxuu la guursanayay gabadh kale oo adduunka kale ka soo jeeda ama gabadh kale oo reer Maroko ahayn oo wiilka ay dishay dalkooda ah si kastaba ha ahaato saaxiibayaal jawaabta ragga Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed bay wada sugaan waxay tahay aniguna aan kamid ahaa maxay ku dambeyn doontaa hablaha Soomaaliyeed maxay ku jawaabi doonaan ama hablaha reer Maroko maxay ku jawaabi doonaan aan dhaahday marka la weydiiyo ragga Soomaaliyeed shuruudaha aad ku xirsan maxaa ay tahay waa su'aasha ugu muhiimsan ee idinka iyo anaguba aan isweydiinayno bal adiguna waxa la soo sheegayaa in ragga Soomaaliyeed halka tagay aan imigaraanay wax materiyaal bay ahayn waa sidoo markii Soomaaliyeed leeyihiin ragga Soomaaliyeed anigu aan ka kooxayn waxaanu aaminsanahay ragga halka tagay inay yihiin niman tashaday oo talaabsaday oo hawlay qaaliga ah Soomaalida ka tanaasula $2,000 wuxuu ku soo dhamaysanaya bal adiga sidee ay kula muuqataa dareenkayga aragtida commentiga nugula soo wada caade fadisnayn si muuqaalkana sii share gare meel fog gaarsi jawaabta hablaha in ka wada sugnaan wada helay ayaa rajaynaya aad baad u mahadsantiin